ma gaari kartid ninkaas laakiin just xataa laba xaba xataa dalbo just ixsaan u samay nafsadaada linkiga profileka ku dhufo okay mawduuca barnaamijka iyo xubinta barnaamijkan qayb ka mid a barnaamijyada waaye si joogta aanan u qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxaa la dhahaa la wadaag khibradaada ragga kale la wadaag khibradaada ragga kale la wadaag jabkaaga ragga kale rag badan markay derbiga soo taabtaan $10,000 $25,000 $30,000 naag daalanaad wadankii ka soo waday kugu booday waxaasoo dhan waxay dhacdaa waayo ragga kale khibradooda ma rabtid inaad ka baratid okay laba qaab baa wax loo bartaa adduun weynahoo dhan gaal cadaan islaam yuhuudi kristan wax kasta laba qaab baa wax loo bartaa noloshan oo dhan guda iyo guud ahaan nolosheena inaad nin ahaan derbiga soo taabatid micnaheedu maxay tahay aad soo dhadhamisid waxaan lagu sheegayo ee afka laga sheegayo iyo inaad wax ka baratid ragga soo dhadhamiyey ka baxay kor isu qaaday isbeddel sameeyey horumar sameeyey okay waa laba midunde mid saddexaad ma jirto ragga badankooduna maanta Soomaalida ma rabaan inay khibradooda wax ka bartaan ma rabaan sababta ay saas u dhacaysana wax kale ma aha qofkii wuxuu rabaa inuu sameeyo isla wixii buu rabaa inuu sameeyo haddana uu helo natiijo ka duwan naagtii hore sooy kugu dhaxday haddana naag labaad baad meesha keentay naagtii labaad isla sidii baad u samaynaysaa isla natiijadii baad helaysaa thank you dayax brother ku jeeda okay isla natiijadii baad helaysaa si aad isu bedeshid waxaad u baahan tahay nin ahaan inaad wax ka baratid waxa kugu dhacay hal mar baad ku istaagtay dhalo mar labaad ma ku istaage mar saddexaad musbaar ma ku istaage mar afraad haddana musbaarkii ma ku istaage adiga wicil maa tahay ma waalan tahay adiga nafsadaada ma xanuunsatid miya adiga wax ka baro khibradaada markaad wax ka baratid ragga kale la wadaag ujeedka dhan waxaa waaye raggu inay isla sheer gareeyaan sidaynu u war badannahay Soomaalideenna iyo sida raggu ay arrimaha iyaga khuseeyo uga hadlaan aad bay u yar tahay okay cabsi wax la dhahaa ma jirto cid deyn kugu leh ma jirto cid wax kugu samayn kartaana ma jirto xaaladaada sheeg ragga la wadaag khibradaada la sheer garay waxa aad soo martay si ay wax uga bartaan okay barnaamijka sheer garay follow samee like samee uma baahnid inaad derbiga soo taabatid waxaad u baahan tahay kaliya inaad wax ka baratid ragga derbiga soo taabtay okay inaad isla faanaa rajaynayaa oo magacaaga meesha joogtid magacii waa Jamaal Abdulqaadir meeqa jir aad tahay 32 jir ahay intee joogtaa waxaan joogaa Greegan joogaa Greega barnaamijyada goorma soo bartay maasha Allah bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa la socda barnaamijka okay waa barnaamij oo aad noo anfacay waa badaalaneen hadda nasaniya macalinka markii soo baxay nasaniba maasha Allah maxaad la wadaagaysaa laba xaniilayaasha maxaad khibradaada ah oo aad la wadaagaysaa dadka daalan waxa la wadaagaa macalinkana wax ka qaataan oo ka faa'iideystaan maasha Allah waxa waaye sidii maaragtay macalinka cashirka ugu qaadanay dhaqaalihii kor baa u kacay marka la iska jiro dhaqaalaha marka kor loo qaado la iska jiro saameynta laga hor tagaan leeyahay oo mahadsantahay ogaada kaga mahadal maasha Allah sidoo kale saameynta waa badatuu dhaa ninkaasi derbiga ha soo taabanin aad bay expensive u tahay marka aad derbiga soo taabatid okay
aad bay expensive u tahay. Okay, sidoo kale follow garay TikTok-ga haddii aadan hadda soo gelin. haddii aadan follow garayn, follow garay TikTok-ga. Targetkeenu waa inaan 200 oo kun xirno sida ugu dhaqsaha badan live-kan markuu dhamaado. Okay, so let's martay do that haddii la ka dhigo. Okay, yaan soo qabtaa. Okay, let's go. Let's do that. magacaaga meesha joogtaa oo Halo, assalaamu calaykum. waalaikum salaam. magacaaga meesha joogtay? Haykal oo South Africa jooga. Haykal South Africa jooga. meeqa jiraad Haykal? 35. 35. barnaamijyada goorma ku soo birtay Haykal? ilaa muddo bil ah. maxaa kuu baxay? Wallaahi aqli baa ii baxay iyo waxaan ku jirnay un annaka inaan waxaan ku soo dhaqayn inaan tilmaamayso baad moodaa. Okay, ma moodaa mise way tahayba? way tahay yacni wax uun na soo haystay in baad ka hadashaa. Okay, dee marka wax badan baan ka faa'iidnay. adiga ahaantaada ka faa'iidnay hadhihina ka faa'iiday waaye. adiga bas aan ka hadlaya. adiga Haykal ahaan anigu haddii waxaan ka faa'iiday fiiri waxaan ka faa'iiday anigu markaan derbiga soo taabtay oo qoftaan la socday 8 bilood la socday oon xeero qaxooti ka soo qaaday oon telefoon qaali u gaday oon magaalo weyn keenay oo intaa sanad aan biilayay dhaarda markaan guri diyaar garoobay ay balogareysay oon telefoonkii markay i balogareysay caadi u wacay oo i tiri wariya edab iga yeelo oo telefoonka dhan la bedelay. Okay, qoftan qaxooti baad ka soo waday adoo halkee qaxootiga halku ku yaalay? anigu South African jooga qaxootiga Kenya ka soo waday. qaxootiga Kenya aad qofta ka soo waday miyaad qabtay? magaalo weyn baan keenay, Nairobi baan keenay. telefoon qaali anigu 36 kun ma qabinay waan bartay oo inaan guursadaan rabay jacayl ba ahayd wax kale oo ma dhaxin. ma jacaylku ma ahayd daanyeerka wuxuu ku dhahay aan sameeyno sheekadan waa daanyeerka waxaas. Okay, marka maalintii dambe ay balogareysay qaxootigaad ka soo waday qaxootiga Kenya Dadaab mise Kakuma Nairobi baad geysay? Dadaab baan ka soo waday. Dadaab baad ka soo waday Nairobi baad geysay. haye Nairobi baan keenay telefoon qaali aan u gaday Nairobi iyo Mombasa iska baashaalaysa ana waan dhaqaaleynay guur saxana ka rabay jacayl dhabaan u qabay. adiga guuraad rabtay? Okay, ma u sheegtay marka guuraan kaa rabaa mise waxaan oo dhan waad iska samaynaysaa la adiga? may waxaan hadda waa heshiinay oo waqti waa qabsanay. waqti baad qabsateen? dee waqtigii marka adigu kale ku kala ligu garbadaan u malayn adigu waqtigii marka la joogo telefoonka laga dansaday waa la balogaray. inta ay balogareen maalmo ka hor waxaa isbedel ku arkay waxaa adi disrespect aan ku arkay respect la'aan baan ka dareemay. laakiin anigu jacaylkayga waxaa ma tusaynin naag waxaan ahaa nin un xaaskiis ku xisaabtamay camal aan ahaa. laakiin maad guursanin so basically xaas kuma aysan ahayn. Okay, so ima ahayn xaas imana doonaan laakiin anigu go'aanka aan lahaa wuxuu ahaa inaan guursado. adiga maskaxdaada waxaa ku jirtay naagtan waad guursanaysaa haddii aad maal gashatidna dhibaato ma laha waxbaa isbedeli kara waxbaa dhici kara dadkan way isbedelaan waxa maad fahansanin adiga? waxaas igama wada dhicin marba dhinac kale ka aad iguma jirin. adiga waxaad u qaadatay qoftan inaad leedahay camal? nacam. Okay, meeqa bilood la socotay oo aad shukaansanaysa? 8 bilood sanad adima dhamaanin. Okay, kadib adiga waa la balogareeyay. kolkii la balogareeyay aan arkay telefoonkan lacag u gashaday waa wacay edab iga yeelay tiri wariya waa akhlaaq darantaa lagu dhahay. soy adi edab iga yeelo. waa qaabkay daanyarada ula hadlaan. daanyarada qaabka loola hadlaa. waa ku celiyay telefoonka hataa leenkay bedelatay hataa balaay si aan u kala goonay dib damba iskugu arkin leenkay bedelatay. leenka automatiga lagaaga bedesha adiga? Okay, su-aasheedu waxay tahay 8 bilood aad qofta shukaansanaysa meeqa kaaga baxda qarasha intaad biilaysay? qarashka saa uma badneen adigu wax $5,000 haduu ka yaraan bay ahayd laakiin jacayl xun baan u qaaday anaa waalan gaaray anaa si xun u noqday nin yacni naagtiisa ka dhimata camal aan noqday anaa xagga la yacni had
brog baa igu dhacay laakiin lacag maba ka welwelinba lacag ma badneen anaa hal brog igu dhacay waalan gaaray oo heer yacni aan cunto cunin oo macni yacni consultancy lala sameeyaan yaan gaaray ma garata ha waxa waaye waa waxyaabaha because of expectation kaaga iyo filashadaadu aad bay u badnayd waxaas waa filashadaadu aad bay ahayd imaginationku waxyaalaha sidoo ragga dilo siiyay way kala labay kala ahaayeen ya aad iyo aad okay so meeqa ka soo wareegtay xilligaas waa 2017 2018 ahayd marka waxaa dhacday macallin adigu hadda daanyeer ba dadku ugu yeertaa anigu markaas marka arrinta igu dhacday baan isku yeeri jiray ana istaan fikiro kolba cajal baa hormari waxaan sameyn jiray jacaylkaan u qabay hadalladan kula hadli jiray saan sawraanteed u dhuunkan jiray yacni wixii waxaas waa gorilaha adiga mu ahayn qofkaas cafi qofkaas markaas aniga markaan fiiriyo oo qaladkii aan dib u fiiriyo waxaan leenahay baad ahayd adigu hadda daayar baad u yeertaa ana isku yeeri jiray ayga xataa waa caqli badan yahay ma la socota ayga aad buu caqli badan ayga smart waa that's why baan ugu wicin okay laakiin midda kale hal baan ogaaday hal aan khibrad u qaatay ulahay baa jiro raggan aan u sheegayaa caawa gabadha iyo wiilka hadday isjecel yihiin qofka jacaylka raba inuu ka baxo hadduu wiilka yahay gabadha si fiican oo calool nugul oo wanaagsan buu jacaylka uga baxaya laakiin ayadu si cadownimo jacaylka uga baxaysa oo kow ee kale laxo dib has kusoo noqonina xaaladdaa kadib weli ma aaminsan tahay jacayl haykalow jacayl horta waa aaminsanahay oo jacayl yacni guur baan aaminsanahay jacayl ma aaminsani guur waa caadi guur qof kasta waa aaminsanaya gaal iyo islaamba laakiin wax jacayl la dhahaa miyuu jiraa kitaabkaaga jacayl afta guur ma sheegi karo laakiin before guur jacayl ma jira sababta waa hadur maba hubtido dad lacagta diraysay nin naagti waad dhaqaalaynaysaa nin naagti waad jeclaynaysaa waxaana kuu daliila anigu markii saa igu dhacday ayaa nin saaxiib aan nahay horta nin raga caawiyo nin raga wax loo gala ah nin raga baa loo gal waxaa dhacday nin raga isii qaaday wuxuu igeeyey Cape Town Banjwaaniga Cape Town Parliament meesha oo building u dhow oo beerta lagu nasto u geeyey meeshaasoo beriga South Africa ay kacsaneed aad gabdho badan oo Asian iyo dumar fara badan marka halkuu indhaha igu nuuray wuxuu yiri waxaad yeelaysaa dumar waa kuway bateen taa kaliim ah iska samir haddana maalin jamcay ahayd masaajidka weyn ee Cape Town ku yaala cadaanka meeshaan tagnay sheekha hadlaya sheekh hindi waxaad moodaa mowduuc aniga uu saabsan inuu ka hadlay xanuunka ani ahay wuxuu yiri tusaalahan wuxuu soo qaatay wuxuu yiri wiil baa gabar jeclaan wuxuu dhihi war aniga heblaha hadaan waayo qadarku ka hadlay markaa sheegay qadarka Allah heblaha hadaan waayo anigu naag kale adduunkan kuma leeyahay naagta uu saalahay waa nin kale naagti yani saas yiri sheekh aminkaasaan aniga sujuudo in ilaahay u noqday ma ogaatay laakiin khaladkaad samaysay adigu khaladkaan sameeyay waxay ahayd inaan aaminaba inaan wax jeclaan naag aan qabin inaan aamino ama jeclaado khaladkayga khaladkaaga waadna ogay daanyarku inuu kugu dhex noolaada xilligaas waad ogaatay xilligaasaan dilay oo ragga dhan ku dhahay iga dambeeyo naag aanan qabin oo weliba meher kugu dhicin lacag ha u dirina adiga waxbaad ka baratay khibraddaadii maxaad u sheegaysaa ragga kale waxaan u sheegayaa keliya fariinta anigooda waxay tahay naag aadan qabin oo xarig kugu xirneen lacag ha u dirin si fiican u dhegaysta ninka raba hadda inuu gorilo noqdo dhegaysa hadhow layma sheegin adhihin ninkan waxa ku dhacay waad maqlaysaa derbiguu soo taabtay ana ay iskugu yeeri jireen adigoo hadda daayar baa tiri markaan cajalihii hormaraan iyo waxaan sameynayay khaladki iyo meeshii lagu tuuray intii saa inta ii halgaaday musqul igu dhex halgaaday iga lug baxday aan fiiriyo waxaan dhihi jirnay ey baad ahayd eedi dhan ba anigu igu soo laabano maskixiyan waad isiisay dhaqaale ahaan waad burburtay waxaadna aamintay inaadan naag kale helaynin oo kale hal mid baan kaaga sheegayaa taas horta nin wax hal naag oo aad adduunyada ku leedahay ma jirto qaacido waxaa jirta gaaladu ay aad nooga gaday sanadihii ugu dambeysay sagaashameeyadii ilaa iyo hadda oo la dhaho maxaa la dhihi jiray the one and only iyo the only one iyo the one iyo waxyaaba noocaasa the one wax la dhahaa ma jirto okay qoraalka ilaahay marka laga tago naagaha maanta tiradooda aad bay u badan tahay adduunyada taas marka laga tago naaguhu nolosheenna way soo galaan wayna ka baxaan hal wadaa jirta isii saar maa rabtaa mise naagaa guursataa rabtaa haddii aad guur
guurtid maxaad ugu baahan tahay naag inaad madadaalisid 8 bilood maxaad ugu baahan tahay naagaadan arkin no inaad the soo situationkana badayo oo waxaa weeye qof markaas dhaqaale inuu aruursana laga yaabo iso why naagu aaday adoo xaruursanayo dabadaada aqaawan tahay waxaa weeye waa khaladaadka hore naga dhacay ka mid tahay firi xisaabta isku dhufo maxaa daaday raggu waxay shukaansi galaan iyagoo lacag aruursanaya soo maaha lacagtaada soo aruursan naagtan hooyadaa may dhalina markaad lacagtaada aruursatid aad diyaar tahay alaab fresh oo diyaarsan waa la helayaa 2 week iyo 1 isbuuc ka badan kaaga kuma qaadanayso intaad hawshaa kala tuuraysid su-aal baan ku weydiinaya marka aan nin hadda weli ku weydiiyo hore u arkin inaan xaas yeelano hore shahwaan leenahay islaam baana nahay xaaraanna ma rabno shahwo meel xalaal aan ku gudanaa rabnaa soo maha inaan ilmo yeelano ilmo dhalnana waa u baahannahay oo ilmo waa u baahannahay awlaad waa u baahannahay soo maha sideen ku guursanaa sida lagu guursan lahaa ee laba xaniyoodka adiga aad sida aad jeceshahay maanta ragga laba xaniyoodka aad la talinaysa inay ku guursadaan guur iyo gabar ku helaan waa sidee noo sheeg marka okay su'aalo inaan ka jawaabo maahay laakiin waan kaaga jawaabayaa su'aashan si nadiif aan kaaga jawaabaya oo straight forward inaad guursato aad rabtaa ubad baan u baahannahay shahwada meelaan gudana u baahannahay sax su'aashu marka waxay tahay goorma su'aashu waxay tahay goorma ii sheeg noloshaadi baa kala daadsan ilmo waxba uma sheegaysid naag waxba uma sheegaysid aniga pointkayga wuxuu yahay si naagta aad guursato iyo ilmahaas iyo reerkaas aad u noqotid laba xaniyood noloshiisa bedela oo noloshooda gacan ku haya oo hogaamiye ah oo dhinac dhaqaale dhinac maskaxeed dhinac fikir dhinac kasta reerka wada waa inaad adigu isi soo dhisto run mise ben okay meesha waxaad leedahay ka saara sheekadan madaalada ka saara markaad diyaar tahay horta sugaykal ma inaad soo dhisto ma tahay de naam maxaa la dhahay tiisaba daryeela tu kala ku dara adigu sidee naag iyo ciyaal uga fakeraysaa adoo taadii ku haysato oo xataa seefin aan lahayn waxba aan meel dhiganin maanta shaqada aad ka shaqayso haddii xaaladdu wareerto aan waxba isku aadin karayn 70% of us problemkaasaan haysto that's the reason aan ku leeyahay fiiri problemka adiga ku haysta guurku xalu maaha guurku waa baashaal raaxo iyo ilaahay maxaa la dhihi jiray ii sheeg wax uu noloshaada uga dhigay hadiyad waay naagaha noloshayna hadiyad bay u yihiin laakiin goormay naagtu hadiyad ku noqonaysaa mataqaana markaad adigu garanaysid waxa aad samaynaysid markaad adigu garanaysid qofkaa tahay markaad adigu garanaysid dhaqaalahaaga qiimihiisa markaad adigu garanaysid listen maxaad ugu jawaabaysaa markaad adigu garanaysid nin ahaan meesha aad nolosha ka taagan tahay adigii baa daalan lacagta yar aad shaqaynaysaa lagaa sii cunayaa guur iyo ciyaal u baahan tahay come on man that's waxay ragga samaynayaan maxaad ugu jawaabaysaa xalimooyinka hadda commentiga aan dagaalka kula jirno Facebook iyo TikTok comment waan xalimooyin daalan kula jirno xalimooyinkaas rag kala jeclaysanaya waxyaalaha ay dhahan hal ku dhigooda waxaa kamid ah xaliye dumarka idinku diriye ininka ragga isguursaday ku jawaabaan oo soo qoraan commentiyada Facebook iyo TikTok taasay ku soo qoraan adiga buufi kuwaas hogaamiyaha uma baahnayn waxaas ka bixiyso waa daalayhin basically xataa adiga wad ogtahay su'aalaha muhiimka bas aan jawaab waa daalayhin rag aan tala siinayaa ragow naag aadan qabin lacag ha u dirin xaaskaada ilmahaada weeye ilmahaada dhaqaalayso ayadaba dhaqaalayso laakiin naag aadan qabin lacag iska dirin waa xilligaad adigu isdhaqaalayso xilligaad adigu nigisyo gadato ragga qaarkood 2 nigis bay haystaan naagayna hawaysanayaan khiyaaliga iyo hurdada xilligii laga kici lahaa baa la gaadhay okay naag iyo ciyaal waxaad wax u tari kartaa markaad taada meel gaadhsiisay okay macallin jacayl maxaad ka amisanta adigu jacayl maxaad ka amisanta ma kama jawaabaya hadda marka la inoo balana maasanta su'aalaha too much bay noqonayaan mawduuca barnaamijkana waad ka baxaysaa mawduuca barnaamijkana waa ka baxaysaa barnaamijka share garay follow samay like samay anigaas waxa jirta hal arrin oo muhiim u ka dhawaajiya jirta okay rag badan oo shahwaan leenahay shahwadaada kama adkaan kartid baahi baa ku haysa
shaqo fiican ma haysid adigii baa daalan qofkaa tahay ma taqaanid iskuma kalsoonid ma waxaa kugu jira xaniyaha aad igu dhahdo naag baan guursanayaa oo ciyaal iyo naag baan mas-uul ka noqonayaa just ii sheeg ma waxaa kugu jira xaniyaha aad igu dhahdo aniga xaliyahaan naag baan wax u qabanayaa iyo ciyaal ma fahansan tahay mas-uuliyadda ay leedahay in la guursado ma fahansan tahay mas-uuliyadda ay leedahay in ilmo aad dhashid aad aabba fiican u noqotid aad role model u noqoto aad korisid runta aan isu sheegno rag badan maxaa la dhihi jiray waxay rabaan mar kasta inaan u sheego waxay rabaan iyagu inay maqlaan runta iyo sida adigu waxaad rabta inaad maqashid waa kala labo realityga jirta waay taadii baa wareersan cid kale wax uma qaban karaysid ha isdaalinin ha isdaalinin ha isdaalinin ha ka fakerin guur ha ka fakerin naag ha ka fakerin ciyaal war tayda see wax ugu qabsadaa tayda see ku hormariya I know aabaha kumuu barin adeerkaa kumuu barin laakiin anaa kuu sheegaya rag badan waxay runtaas ogaadaan markay derbiga soo taabtaan meel fadhiisa maanta 10 daqiiqo qaado 15 daqiiqo qaado social media iska xir isweydii su'aashan noloshayda sidee anigu wax ugu qaban karayaa taada markaad wax u qabatid baad cid kale wax u qaban karaysaa qiimay noloshaadu meeshay taagan tahay qiimay noloshaadu meesha ay taagan tahay xaliya laakiin lacag baan aruursanayaa xiriir baan ku jira waxba ma haysatid waa khiyaali hadda kadib aad wax aruursanaysaa maxaad u soo shaqaysan laadahay energy-gan iyo maxaa la dhihi jiray xooggan iyo qarashkan aad gelinaysa xiriirkan iyo khiyaaligan jacaylkan iyo beentan maxaad u gelin laadahay inaad isdhistid kor isu qaadid xirfad samaysatid dhaqaalahaaga kobcisid okay maalinkii ay wax iskugu kaa toosaana oo aad comfortable tahay aad imaatid miiska oo aad dahda alaab freshaa raba waxaad isweydiisaa maanta si daacada su-aashan isu weydiin si daacada isu weydiinin ahaan su-aashan okay anigu sidee tayda ku daryeeli karaa jooji inaad dad kale korka iska saartid maanta ciyaal badan waxay u rafaadsan yihiin naagaha soomaaliduna ay internetka u wada taagan yihiin wax kale ma aha maad aqoon waxa aad samaynaysay by productiga marka muxuu noqonayaa isii saar inaad samaysid okay inaad maxaa la dhihi jiray ciyaal ay ka dhashaan ciyaalkii mas-uuliyadoodii ma qaadi karaysid dhaqaale kugu filan ma haysatid naagta laftarkeedu way daalanayd ifur baa meesha taalla soy xataa ma awoodid aakhir inaad ilmaha aad caawisid naag daalan baad guursatay ilmaad ka dhashay adaa mas-uul ka ah aakhira iyo adduunba adaa dhalay waa siidhkaagii waa biyahaagii aday adduunyadan kaaga fadhiyaan wax haddaad adigii daalan tahay ilmahan siday noloshan wax uga qabanayaan daraasad la sameeyey mar dhexdaasa waxaa la ogaaday in ilmaha aabbala-aanta kora 80% ay ka maskax yar yihiin ka koritaan yar yihiin ka fashil badan yihiin ilmaha ku kora aabbahood iyo hooyadooda isla jooga oo weliba aabbahood uu maxaa la dhihi jiray role model u yahay meeqa idinka mid ah maanta ciyaalkooda tusaale fiican u noqon karaya runta aan isu sheegno nafsadaadaa ka shaqays u baahan adaa isdhis u baahan adaa isbeddel u baahan adaa kor isu qaadis u baahan markaa kadib baad cid kale wax u qaban karaysaa waddadan dheer ee ah shukaansi lacagsi qofta biil outingay waxaasoo dhan u gembi maanta bilow maanta inaad isdhistid maalinkaad diyaar tahay waqtigeeda marka la gaadho baratid sida laysu kontroolo baratid maxaa la dhihi jiray sida nafsadaada discipline aad u noqotid baratid xirfado cusub lacag fiican samaysid xilliga aynu joogno wax kasta dhaqaalay u baahan yihiin si fiican ii dhegeyso xilliga aynu joogno wax kasta dhaqaalay u baahan yihiin haddii aad dhaqaale ahaan liidatana fashilka ugu badan waa meesha uu ka imaado furiinada badankoodu dhacaya 80%
maraykanka daraasaday soo saareen 80% furiinada ka dhacaya wuxuu ka dhashaa sheeko la xiriirta dhaqaale. Okay, noloshaada markaad adkaysid, kor isu qaadid, dhinac kasta aad iska giijisid, dhinacyo badan baa jira oo nolosha ah, markaas baad qof kale wax u qaban kartaa, Khadiija kuusay ka fakari kartaa, Xaliima kuusay ka fakari kartaa. Maalinkaasna waxaad u baahan tahay inuu warkaagu caddaado oo uu toosnaado. Qorraxda warkaagu inuu ka caddaado la rabaa. Waa dahdi lisan Khadiijo, waxaan rabaa sidan iyo sidan iyo sidan, xilli hebel iyo xilli hebel. Budgetkayga iyo waxaan rabo wax ku samaysto waa intan iyo intan iyo intan. Kulligin xiriir baad gelaysaan idinkoo ogeyn meeshaad u socotaan. Okay, caqligaagu ha shaqeeyo, caqligaagu ha shaqeeyo. Inaan isla fahnaan rajaynayaa taas. Okay, aha, let's see. Magacaaga ina jirtaa Gedi from Nairobi. Geedi meeqa jirata? Soddon. Okay, barnaamijyada goorma kusoo birtay Geedi? Ilaa 4 bilood. Okay, ma shaqaysaa? Yes. Maxaa kaaga baxay barnaamijyadeeda inta ilaa inta kusoo birtay? Wallaahi wax reality oo dhabaad ka hadashay oo jiray. Nin walbana in nafsadiisa aad ka hadlaysaad moodaa, waxaana iga baxay inay tahay waxaad ka hadlaysa xaqiiq. Dhalinyartuna ay ku sugan tahay dhalanteed iyo waxay dhaantay magaalo camal la odhan jiray Soomaalida. Okay, maxaad la wadaagaysaa khibradaada oo aad maartay mawduuca waxaa waaye la wadaagaaga kale khibradaada ama jabkaaga si ay wax uga bartaan. Maxaad ku darsanaysaa? Wallaahi jabkii ugu xumaa ee soo maray gabadha xiriir la lahaa muddo 2 sano la socday kadib dee waa biilayay qarasha iga baxayay waqti iga baxayay xataa iyada darteed baa Nairobi uga duulay oo wadan kale ugu tagay. Okay, kolka u tagay guriga ka reebay oo iga soo diiday waa ka soo laabtay. okay, iyada lafteeda meel fog kala ka timid marka adoo camal aan soo laabtay haddana derbiga kolkaan taaban doona bay ahayd anoo yaaban oo leh xaguu wax ka khaldan yahay ka waxaa dhacday inay iyadii habeenada ka mida hadiyad badan u sameeyay anoo Nairobi jooga. Wallaahi been sheeg maayo $1,000 oo hadiyad oo dhar iyo waxyaalo badan oo isku jiray u diyaariyay. Habeenkii farxadii aan la hadlayay taas macna igu tala gashay isoo diraysaa bay lahayd. dee ruuxu kolku aad u faraxsan yahay oo kolka uu furfuran yahay hadal baa ka fakaday oo ahaa camal ileen kolka aniga la diiday baa nin kala wala xiriirka la sameeyay oo la igu dulwaday oo la igu dhaqaaleynayay oo meesha ku jirayba. okay, halka waxay tiri isma guursan karno waay arrintaas jirta way dhacday. okay, meeqa sano la socotay qofta shukaansanaysa? 2 sano. 2 sano. Yes. kolka hadiyadii aawaday waan diri rabay kolka wallahi hadda halkan ay taala live hadan soo galo on video kamerada furto waan tusi karaa. waxay hadda 72 beri halkan taala maalintii ayaan derbiga soo taabtay arkay in meesha waxba oo limban go aan qaatay farxana ka qaaday. qorshahaaga koobaad muxuu ahaa adiga? qorshahaaga koobaad inaan guursado ayaa rabay 2 sano way meernaysay. bilowgii ma u sheegtay inaad guursato? yes maxaa xiriirka aniga ugu horeeyay iyo isfahanka aniga ugu horeeyay waxaan ka bilaabay inaan isguursanaan rabaa bilba dib la dhigay xilliba la dhigay kulka ugu dambeysay waxa ogaaday naagtan baynayna nin kale oo diyaarsantaa inaba aan ahay on daanyeer gurilo oo amal lagu shaqeynayo. 2 sano meeqa ka baxay? wallaahi 2 sano qarashkayga baxay celcelis hadii la xisaabiyo $5,000 baa filaya hadii $5,000 ugu dambeysay
iyo $1,000 hadiyada $6,000 waa hadda meeshan ay ku xanibanta wallahi halkan bay hortaala kaamirada dambe roon tusi karaa suuqa maxaa la dhihi jiray xaraashka geewo waxba kuma tarayso waxaas waa lacag khasaartay waa aad weyn ama qof halka ragga waxaan leeyahay nin ceel galay waa laga warsadaaye ama dee ragga waxa uu sheegayaa waxaa la dhahaa nin ceel ninkii galaa laga warsadaa baa la yidhi ama ragga soo jabay waxay idin leeyihiin qaata ama dee kolkaa derbiga soo taabataan baad soo noqon doontaan sii socda baa idin leeyahay maqlaysaan ugu celi ceel nin galay baa laga warsadaa baa la yidhi ama talada qaata oo waxa la idin leeyahay waa xaqiiq dhacday ee warka saa ku qaata haddii kale sii socdo wala derbiga soo taabataan after 5 years 5 sano kadib meelahaasaan soo warrabi doonaa maqlaysaan derbiga la soo taabto very expensive waa maxaa iska kaa bedelay marka adiga markay sheekadaas dhacday qofkii aad aragtay inay tacbaan tahay oo maartay lagu ciyaarayay basically aad daanyeer ahayd maxaa kuu suurta galay waxaa ii suurta galay oo iska kii bedelay horta alxamdulillaah xagga go'aanka aan ku adagahay waxaa dhacday habeenkii ay arrintaasi dhacday inaan kaliya go'aan goosto iyadoo waxba aan u sheegin go'aankii aan goostayna caawa waxaa laga joogaa 82 beri 82 beri wallahi dhaqaale aan weligay soo gelin baa soo galay halkan baan public ka sheegayaa abidkay $10,000 mayna soo kii ururin $10,000 ay soo kii ururtay 80 beri sababtoo ah dhaqaalaha waa sii bixin jiray lacagtu way ka sii baxaysay lacagtu waa socotay meel u socotana lama waa sii socotay $1,000 xitaa maalinta 2 bilood aan ku 3 bilood aan isku ururiyay araan meesha ku sii bixinay kadib waxa ogaaday in dhaqaalahan uu ahaaba amal haan daba duleesho amal nin ku lisay oo kale hal dix lagu lisay maxaa caanaheedu xagee ku dhacayaan dixdaas ku dhacayaan si fiican kolka dhaqaalahaas ay ururo wallahi dhaqaalahaas ay ururo waana ku faraxsanahay stress la'aan baan seexdaa habeen walba caafimaad baa ku seexdaa ku soo toosaa ka bedelay dhinaca kale noloshaada dhinaca kale like fikirkaaga qaabkaad u fikiraysay waxaasaad wax u fiirinaysay barnaamijka markaad kusoo biirtay like maxaa iska bedelay marka dhinaca kale waxaa iska bedelay in waqtiyadii bilmetal xaggi dhaqaalaha saasay noqotay laakiin xaggi waqtigan waxaa iska bedelay in aan shaqada kolaan ka soo baxo anigii wax barto college aan galo computerka oo kale aan sii barto aniga aqoontayda aan sii ziyaadiyo aanba amal waqtigeyga aan xagga ku bixiyo oo aqoon sii ziyaadsado oo ogaado inay noloshu inaad dhista ay ka fiican tahay inaad daanyar sii ahaato ama meel cidla aad ku bixiso waqtiga waxaas wax ka daran labadaas sana waqtigii iyo energy kaaga baxay lacag dib baad u shaqaysan kartaa laakiin energy iyo waqtigii iyo maxaa la dhihi jiray iyo dadaalkii kaaga baxayay labadaas sano waa wax kasta maxaa la dhihi jiray ka badan yes waqtiga ka qaalisan waxa waliba maanta ay igu soo hagaagtay oo in yar ku darsanaya waa maanta ayaan ka qalin jabiyay college computer oo 3 bilood ee ugu dambeysay aan dhiganayay waxaana ogaaday inay uu yahay asman ma yunfiq alwaqtu allo saabiyo congratulations waa ninkan already noo sidoo bilaabay computer maada qoon laakiin naaga $1,000 uga bixinaysay hadiyad wallahi maalintii igu oohin badneed waxay intaan meel geeyay dalxiisa meel baradhay loo sila dhaho aan kulkan geeyay aan wixii qarashay oo dhan aan ku bixiyay waxa dhacday inaan maghribkii soo noqono kol maghribkii soo noqday ya 3 jeer 4 jeer waa iga qaban weyday koolka kolkii dambe la iga qabtayna waxa la yiri bahowe waa maxaa isoo waxaysaa aniga waqtiga iga lumisay aniga kana igu samaysay aniga waa i kharibtay aniga waa i daalisay waa teleefankayga mar walba soo waxaysaa arbaa waxaan ku irim saasa raali ah waa ku ir waa ka jartay teleefanka kadib waa iska hadda wax kasta aad samayso halkii waan ka sii bilaabay habeenkii dambana halkii waan ka sii bilaabay sheekadii waxba ma qaadanin ready disrespect yaa lagugu sameeyay waxyaaba hal mid oo kalena waan kuu sheegayaa niyo geedi ma helo magacaaga yes okay geedi niyo horta adis diyaari yes waxyaabaha ragga badankoodu aysan ugu guulaysanin naagaha waxa ka mid ah markay imaato oo loogu baashaalo oo lagu raaxaysto aad baad u baahan tahay aad baad ugu ooman tahay iyada si aysan iyadu kuugu oomanayn yes okay markastood adigu ka baahi badan tahay naagta iyada shaqadeeda waaye inay ninka raadiso inay ninka wacdo inay kaa daba wareegaalisato naturekeedu waa iyada sidaas
yes waxaaba adigu ku ogaaday iyadii baad ka soo horjeesatay iyadii baad bursanaysaa oo kaa seexan la yes iyadaad la tartamaysaa tartan baad kula yes jirtaa de ma tihid naagta hogaamiyaheedii ma tihid naagta ninkii maxaa la dhihi jiray booska u ahaa way ku gabadhoon aragtaa baa tahay wixii geeri la odhan jiray gabadhoon baa tahay caadi way ku aragtaa so nin ahaan horta iska ilow baahidan iyo oomanaantan adiga isku mashquul jim ma aada ma isdhista haa waa aadaa okay waa aadaa jimka aad xirfado cusub baro luuqadaha haddaadan aqoon iska dhis luuqadaha aad ku liidato meel fadhiiso waxaad isweydiisaa maxaan ku liitaa oo aan iska dhisi karayaa maanta maxaan isbeddel samayn karayaa cidna kuma dhalato iyadoo wax taqaana cidna kuma dhalato iyadoo noloshan lacag badan samaynaysa cidna kuma dhalato iyadoo kalsooni leh waxaan oo dhan raggu way dhisaan rag ahaan si aynu qiimaheenna u kordhino waa inaynu dhisnaa qiimaheenna naagtu waxay u baahan tahay keliya inay qurux badnaato okay yes ay da yaraato wax kasta way helaysaa adigu waxa igu diray waa inaad shaqaysid waa inaad waqti gelisid waa inaad soo jeedid waa inaad dadaashid si aad meel u gaadhid okay so koobaad adigu iska bilow naag way imaanaysaa naag iyada adiga kuu baahan okay iyada adiga kuu baahan markaad tahay ninka saxda laba xaniyoodka dhaqaalihiisa qiimo u leeyahay xushmad darre yariisa haddaad urisa sii dhaqaaq you don't need naag laba bahdil no bahdil ha ayada ma fiiri hal midaa kuu sheega ta labaad waxyaabahan outinka giftiyada maxay samaysay maxay ku kasbatay in waxaan loo sameeyo bini aadanka oo dhan waxay jecel yihiin waxa ay helayaan waxa markay helayaan oo waxaa qiimaynayaan inay yihiin waxay u dhidideen waxay shaqaysteen waxay kasbadeen waxay u soo dadaaleen naagtu maxay kasbatay markaad maalin dhan ku luminaysid waqtigaaga adiga waqtiga waa kaa lumay maxaa la dhihi jiray wax kasta way kaa lumeen lacagtii way kaa luntay stiil dac way qabtaa naagu waa sida bisadoo kale anytime wixii ay rabtay markay kaa hesho soy bay ku dhahaysaa so taada koobaad taada xoogga saar adiga isdhis kalsoonidaadana koruqa waa mid kale ragga badankooda qaar badan waxaa jira aaminsan ku dhahaya oo xalliya aniga niyo aniga siday naagi ku rabaysaa haddaa naagaha anigu burin waayo no isku kalsoono boqolkiiba boqol markaad isku kalsoonaato waxaa bilaabmaysa naag kasta inay adiga ku soo raadiso mar kasta oo aad naagaha ka sii jeesato waa mar kasta adiga kugu soo jeedaan mar kasta oo aadan naag rabin mar kasta oo aad taada xoogga saarayso mar kastoo adiga danahaaga aad wadatid waa mar kasta oo ay iyadu ku rabto naag ma rabto nin bursanaya naag ma rabto nin tacbaana ninaan shaqaysanaynin nin nafsadiisa ka hormarinaya nafsadaada cidnaha ka hormarinin $1,000 miya ahaa $700 $700 laptop cusub kusoo gado dhanka safar cusub soo baashaal adiga taada waa inay wax kasta ka hormaraan iyo midda kale oo ah baro waxaad rabtid adigu maxaad rabtaa maxay tahay safarkaad gelaysid ma adduunyada naaga ka dhammaadeen safar baan galay adduunyada naaga kamay dhammaan waxaasoo dhan riyo waaye dhalanteed waa khiyaali already maskaxdaada waxaad gashatay maxaa la dhihi jiray naagtan inay naagtaadi tahay naagtan inaad maaragtay ciyaal ka dhalays waxaan imagination baad sawiratay ay jira rag badankoodana way kula mid yihiin adiga keligaa ma waa inaad fahansan tahay aad leedahay maskaxda mindsetkaaga waa inay jirto naaguhu ma dhammaanayaan naaguhu alaab supermarketka maxaa la dhihi jira hadda let's say qalinkan oo kale marka laga waayo maxaa la dhihi jiray marketka maxaa dhacaya demandkiisa uu badnaanaya dadka u baahan qalinkan inay isticmaalaan supplygiina uu yar yahay famusa waxaa dhacaya qalinkan suuqa uu ka go'oya si qalinkan marka anigu aanu helo waa inaan degdego supermarketka tago qalimo badan soo gato waxaasoo dhan qaali baana la iga gadaya naaguhu saasoo kale ma aha naaguhu ma dhammaanayaan waxaa la joogaa taariikhda xilligii populationka adduunyada ay naaguhu u badnaayeen naaguhu si ay u survive gareeyaan oo adduunyadan ugu sii noolaadaan rag bay u baahan yihiin naaguhu hadda ma dhammaanayaan laakiin adiga waad dhammaanaysaa waqti baa kaa lumaya lacag baa kaa lumaysa
maskax baa kaa lumaysa xilli taladu aadan waxba ka qaban karin haddaan ku siiyo $1 million tala haddaan ku siiyo ah tala u dhiganta qiimaheedu $1 milyan haddaan ku siiyo oo aad $1 milyan xalliyo farta ka saartid xilli waxaa jirta aanan ku caawin karaynin ها والله fahamsa so alxamdulilah dhe meel fiican baad hadda ka qabatay laakiin derbiga markaan leeyahay raggan ha soo taabanina waxaa waaye xilli waxaa jirta taladu aysan waxba kuu jaraynin xilli go'aanadaadu aysan waxba jaraynin ها والله okay naaguhu ma dhammaanayaan waa inaad aamintid waay rag badankooda dhegaysanaya ina daawanaya waa inay fahansan yihiin naaguhu ma dhammaanayaan naaguhu si ay u sii noolaadaan si tarankooda u bato si ay adduunyadan usii joogaan rag bay u baahan yihiin waxa ugu qaalisan adduunka ee ilmo lagu produce gareeya rag wataan 24 hour xaniyaheena ciyaal baynu ku wadanaa run mise been yes run spamska waa waxa ciyaalka dhala naagtu waa receiver waa receiverkaasna wuxuu u baahan yahay inuu helo maxaa la dhihi jiray meesh wixii wax ku shubay adaa lagu baahan isbitaalada adduunka waxa lagu deeqaya maanta isbitaalka lagu deeqayo adduunweynaha oo dhan waa spam waa ugxan waa okay waa shahwadii ragga waxa loo baahan yahay maanta xataa naagahan dhaha lesbian baan nahay naagahan u tagnaayo filimadan keensada si ay ciyaal u dhalaan waa inay isbitaalka tagaan oo ay ka gataan nin ugxantiisa spamkiisa say u qaalisan tahay adiga marka waa inaad qiimahaaga fahantid oo aad dahdid wait a minute anaa lay baahan yahay geemka waa isbedele mar kastoo aad fahansid in adiga lagu baahan yahay mar kasta oo adiga aad qiimo leedahay noloshaada aad kor u qaadid adiga aad value sare joogtidna waa mar kastay naaguhu adiga ku baahan yihiin naag rabta nin aan isku kalsoonayn oo daalan oo tacbaana oo kalsooni aan lahayn waxba aan lahayn maanta dhan iyada caabudaya wax kasta iyada ka hormarinaya ma jirto ma rabto naagna ma rabto naaguhu hoos bay ka og yihiin ninka ay rabaan waa nin laba xaniyooda sidii nin u dhaqmaya iyadu sida naag ha u dhaqanto iyadu ha kaa daba orado iyadu ha ku soo wacdo ya so inaa isla fahnaa rajinaya aad baan kaaga mahad celinayaa waxaa kusoo gabagabeynayaa habeen hore aniga soo socdo xaafadda u soo socdo BC iyo agaab iyo wax badan wata dhalinyar guriga hortaagan baan soo maray oo waxay fiirinayaan inay naag daba socoto ma garatay qolkana kaliya iska degan waa la soo furiyo kale qolkii aan furay kaliya aan furay kulaha war ninka naftiisu gurile u yahay ma garatay ma oga jabka aan soo maray inaan derbiga soo taaftay exactly wax adiga shaati cusub soo gado adiga naftaada adoo roon baad arkaysaa kolkaa derbiga soo taabato laakiin qiimaha ogaatay inay muhiim tahay inaad nafsadaada intaad biisa usoo gadi keligaa peaceful aad ku cuntid keligaa peaceful waxaan ogaaday kolkii ay lacagtan dirayay ay ugu tiri nin kale ayaanba u diray afkeeda ay kaga dhawaaq kolkaasan iri wale waxaa meel cidla abaad hal dix lagu lisay baa tahay camal baan iri kolkaasan ka yaqumaati keliya go-aan gooste si fiican badan wuu ku wadaa halkaa ka sii wad ha tuurin kubadda halkaa ka wad isdhis maalin hadda dhammaysay luuqadaha ku xeji isdhis maalin kasta isweydii maxaan iska bedeli karaya maxaan rabaa inaan nolosha waqtigaaga manage garay lacagtaada kor u sii qaad okay the more value-gaaga uu meel sare joogo waa the more naagaha adiga kuu baahan laakiin nin caadiya markaad iska tahay oo aad iska liidato waxba aadan maaragtay noloshan kusoo kordhin karaynin dee naagna kuma rabto waa lagaa daadsanaa waa lagu baaranaa sooyaa laguu leeyahay sidii aa lagu samaynaa yes ragga aan weli soo joogin waxaan ku leeyahay waxba naagaha qurbaha joogay bilmetal sii fiirfiiriyaan kuwaasi waxa idiin hayaan ma jirto naftiina isdhisa derbigaa soo taaban doontaan meel kasta oy dunida ka joogaan jeebkaaga shilinka ku jira wax walba ka qaalisan aabbahay baa geella waxaa dhaanta anigaa dameer lama garateen kolkaa waxaan idinkula talin lahaa cid kale jeebkiisa weligiin ha ku fikirina idinku isdhisa idinku wax iska dhiga idinku meel ka soo baxa biliis saasaan idin leeyahay laakiin maalinaan maanta in baa la garan doonaa ragga dhagaha adag ya ha dhaga adeegan anigu waxaan dhaama taqaanaa soo dhaga adeeg indha adeeg ku jir derbiga soo taabo okay qurbaha hadday tahay qurbaha waa kana braado waa la daalan yahay okay
khadiija والله ولا دالين والله waxaan ogahay rag intay jaamacada ka soo baxeen habeen walba kiniin ku seexda waxaasina wax kale ma wala waalay habeen walba kiniin bay ku seexda sababtoo ah ibir exactly because of maskax fiiri waxa ugu qaalisan mataqaanaa ninka ragga ah waa inuu maskaxdiisa degan tahay wax kasta waad samayn kartaa hadday maskaxdaada degan tahay okay wax meel kasta hadii laga qanin mar laba in laga qanin shaqadan aan qabanay waxaan aan qabanay cid inaad u ogolaatidba maba ahaanba cid inaad u ogolaatid laakiin raggan maskaxdiisa way sii dhimanaysaa dhaqaalihiisa wuu sii dhimanaya waxa aynu rag ku nahayna waa maskaxdeenna iyo lacagteenna wax kale rag kuma nihin ninka ragga waa jeeb 13 sano rag Nairobi joogay oo aan intaa soo joogay yaa meeshan waxaan joogaa muddo 5 sano yaa waxaa dhacday dee 3 bilood aan gurnimada ka baxay baa waan isbedelay jirkeyga iyo noloshaydii iyo waxaygo dhan ayaa isbedelay wallahi maalin dhaweyta annakoo live ku jirnaba maamada hooyadii iyo waxa iyo mid kale oo ilmaabtina aan saak fadhina oo gurle weyna walka ninkaas waxa ka muuqda waad yaabaysaa waxa la yiraahdo ninkaas video call-ka waa naga qarin jiray 10 sano meesha joogay maxaa dhafoorkiisa saa ogolo maxaa ninka ku dhacay wala garan waaye halka wajigaaga laga akhrisan waxa tahay wajigaaga ka muuqata 100% ninka kabaha fiican iyo shaatiga fiican iyo dharka fiican watee jirkiisu dhisan yahay jirkiisu caafimaad qaba iyo ninka caloosha halkaa marayso naasuhu halkaa marayaan dabadu ka dambayso tacbaana isagoo dhan dhafarsan xataa dadkan ma seexdaan hurdo fiican xataa raggani ma helaan xaaraan bay ka tahay habeen walba wuxuu seexdaa salaad subax kolna salaad subax soo kacu seexdaa gorma wax qabsanaysa xilligii waa xilli adduunyada ay kala baxayso waa yes you know so rag badan ma fahmaan waxaana dhihi karayaa cid kasta ma badbaadin karayno ciddii qaadanaysa fariinta way qaadanaysaa ciddii aan qaadanayn اللهم هل بلغت واي وين قارسين انا waa gaarsiinay yes وما سنتها ad maqlaysaa